afartanka qof ee la soo eedeeyay waxaa ku jira dad Soomaali ah oo Mareykanka ku nool kuwaasoo xiriir la leh Kenya waxaana loo haystaa inay khiyaameeyeen 250 milyan oo dollar oo qayb ka ah barnaamij loogu talagalay in cunno lagu siiyo caruur xilligii uu jiray cudurka COVID-19 maamulayaasha Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay ku dhawaaqeen in dadkaas la tuhunsan yahay lala xiriirinayo hay'ad ay maamusho gabar la yiraahdo Amy Bock oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo la yiraahdo Feeding Our Future oo ka shaqeysa barnaamijka heer federaal ee quudinta caruurta gobolka Minnesota. Amy Bock waxa ay diiday inay wax khalad sameeyeen. agaasimaha FBI-da Christopher Wray waxa uu arrinta ku tilmaamay shirqool aad u xun ahna kii ugu weynaa ee noociisa ee daaha laga qaado. eedeysanayaasha ayaa waxaa la sheegayaa in ay bixiyeen biilasha cunno aan la cunin oo la siiyey caruur aan jirin sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Mareykanka. waxay sidaa yeeleen baa la leeyahay ayaga oo si xun u isticmaalaya qorshaha dawladda ee saamaxaya in makhaayadaha gaarka loo leeyahay ay lacago soo dallacan karaan ayagoo sheeganaya in si waafaqsan barnaamijkaas aan macaashka laga raadinayn ay cunno u bixiyeen. sida ay dacwaddu sheegayso shaqaalaha hay'adda Feeding Our Future ayaa qortay shakhsiyaad iyo hay'ado si loo furo xarumo quudin gobolka oo dhan. goobahaas oo ay abuureen kana shaqeeyaan dadka eedeysan iyo qaar kale ayaa waxaa la sheegayaa in si aan sax ahayn ay u sheegteen inay raashin siinayaan kumanaan caruur ah maalintiiba maalmo gudahood markii la sameeyey. waaxda cadaaladdu waxa ay sheegaysaa in dadka eedeysan lacagta ay isdaba mariyeen kuna iibsadeen gawaarida raaxada iyo dhismayaal isugu jira kuwa deegaan iyo kuwa ganacsi gobollada Minnesota, Ohio iyo Kentucky. waxaa sidoo kale hantima guurta ah ay kaga iibsadeen xeebta Kenya iyo Turkiga ayagoo sidoo kalena u isticmaalay safarro caalami ah. mid ka mid ah dadkaas ayaa Mareykanka lagu xiray bishii April isagoo isku dayayay inuu u dhoofo Kenya siina maro Amsterdam. bishii hore ayuu qirtay khiyaano xagga baasaboorka ah in uu sameeyey. dembiyada kale ee loo haysto dadkaas waxaa ka mid ah mu'aamaraad, lacago la xawilay, lacago si xaaraana lagu kasbaday iyo laaluush. xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland waxa uu sheegay in waaxda cadaaladdu ay sii wadi doonto inay gacan bira ku qabato kuwa buu yiri wixii cudurka loogu talagalay u isticmaalaya danahooda gaarka ah.